nin reer baadiya saa intuu fiiri oo dhan khudbadaas ay ku dhageysanayna laba go'o dheeraad ah wadata markaasuu wiilkiisa Cabdullaahi ay u jawaab markaasuu aabay waa nin dheero anaa go'igii ugu daray haddaan ku maqlaynaa hadal uu yiri marka sayidina Umar hadal qiimo badan oo dhahay wuxuu yiri la khayra fiikum in lam taquluha haddii aa idinku nasixinina khayr ma lihidin wala khayra fiina oo dhahay in lam nasma'a annagana haddaan maqal wax khayr ma lihidin dimuqraadiyadu oo wuxuu ku sameynayay waa institutionalize gareey dimuqraadiyadu saas ka bilaab Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhalanteedka ma hadlo dhuumaalaysi kuma shaqeysto dhabta ayuu ka hadlaa si dhibka looga baxo wuxuu sawiraa taariikhdii la soo maray si loogu cibro qaato wuxuu sifa ka bixiyaa halka maanta la joogo wuxuu tilmaam tolmoon ka bixiyaa halka loo socdo waa kuwan shacabka Soomaaliyeed oo si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo ololaha musharaxiinta kala duwan sida ay u arkaan hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka bacdi markaan sameeyay baaritaano badan si aan u kala doorto siyaasiyiinta Soomaaliya waxaan u arkay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu